canfar iyo oromo markaan waxay heleen jaaniskii ugu weynaa dhulkii Soomaalidana waa la kala qaadanaya mar haddii la kala diro ciidanka liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalidu waa ay ku daayeen dhammaan dhulkii Soomaalida qorshahan Abiy ayaa Soomaalida u dagay waxaana uu rabaa dhul ballaarsi ballaaran inay sameeyaan dhinacyada canfar iyo oromo oo haddaba u soo tafaxidanaya qaadashada dhulka Soomaalidu haddaba haddii ciidanka dowlad deegaanka la kala diro dhulkii Soomaalida ee galbeedka City waa ay ku deysay wadadii weyneed ee isku xiriirsan Addis Ababa iyo Djibouti waa ku deysay dhulkaas oo dhan canfar ayay gacan u galaysaa ama oromada iyaguna isku dilaan waa macquul laakiin Soomaalidu gacanteeda way ka baxaysaa maalinta ugu horeysay la kala diray ciidamada dowlad deegaanka ee tababaran liyu boolis ayaad ogaan doontaan sheekadaasna waa hadda mid cusub Abiy ayaana qorshahan u diyaariyay Soomaalida iyaga ayaa looga goleeyahay haddaba dhulkii Soomaalida ee ugu badnaa ayaa markan wuxuu noqonayaa dhul Ethiopian oo canfar ama oromo ay leedahay muuqaalkeena Laxar si Soomaalidu ay difaac kaga jirto shargaray sidoo kale janaalkeena subscribe dheh dhulka Soomaalida Ethiopia waqtigan gumaysi ayuu ku jiraa waxaana la soo warinayaa in gacanta loo gelinayo canfar oromo iyo sidoo kale Amxaaro waa waqti kala guura xaalad amni oo halis ah ayuuna hadda maraya hadiiba la kala diro ciidanka liyu booliska oromiya canfar dhul ballaarsi ayay u hanqal taagan yihiin oo inay soo weeraraan Soomaalida ayayba u diyaarsan yihiin ciidamadooda waa ay diyaareen hubkii ay soo qaadan lahaayeen marka ugu horeysay ay maqlaanna in ciidamada Soomaalidu hubka ay wareejiyeen waa meesha ay ka soo geli doonaan dhinacyada ay maamulaan isla haddaba oromada ayaa bilaawday olole ka dhanaa Soomaalida deegaanka Babele la yiraahdo iyo sidoo kale degmada Bandhame iyo Koora oo lagu doonayay in lagu eriyo Soomaalida guryahooda ku sugan oo la qaato la boobo isla markaana hantidooda la dhaco haddii Soomaalidu sidaas u fududahay waxay noqon doontaa mid jilicsan oo ay dhici doonaan dhinacyada hadiisa ay Mustafa Cagtar iyo dowladdiisuba xal u hesho waxay noqon doontaa mid meesha ka saaraysa hanqalkaas ama iimaan darada oromada iyo Amxaarada iyo canfartuba hayso laakiin waa uu ogolaaday Mustafa Cagtar in la kala diro dhammaan maamulka ciidanka iyo dhammaan saraakiisha dowlad deegaanka waa uu ansixiyay waxaana uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee qaata amarkii Abiy Ahmed waa wax laga xumaado in jigjiga noqoto gobolkii ugu horeeyay ee taageera go'aanka Abiy ee liyu booliska lagu kala dirayo kadib dib u habeynta ay sheegeen baarlamaanka iyo dowladda Abiy golaha wasiirada deegaanka Soomaalida ayaa waxay ansixiyeen in la kala diro liyu booliska deegaanka waxaana taasi ay ka dhigan tahay deegaankii ugu horeeyay ee toos ugu dhawaaqa fulinta kala dirista liyu booliska ama dib u habeynta Cagtar qoraalkan ayuu soo qoray isaga oo ka hadlaya qaabka loo kala dirayo ciidamada waxaana uu goordhow ogolaaday in la kala diro ciidankan golaha wasiirada dowlad deegaanka Soomaalida oo kulan yeeshay ayaa ansixiyay qorshaha dib u habeynta ciidamada gaarka ah ee gobolka Liyuga marka xiga waxaa la filayaa in liyu booliska Soomaaliyeed la isku waafajiyo oo laga dhigo kuwa heer federaal ah ama ciidamada difaaca qaranka Itoobiya waana mid meesha ka saaraysa durbaba in Soomaalidu ay helaan wajiga ugu horeeya ee awood qaybsiga maadaama dhibaato badan ay ka jiraan oo halkaasi ay ka dhaceen waxyaabaha loo dulqaadan karin laakiin xilligan waqtigan adag waxay maraysaa in isbedeladu ay saameeyaan dadkii Soomaaliyeed ee ku sugnaa qayb ka mid ah ee dhulkii Soomaalida iyaga ahaa haddasa waxaa la soo warinayaa in xaaladdu aysan sida ahayn isbedelna uu jiro maadaama ay dhinacyadu arkayaan waxa ka dhici kara dhinac walba oo ku aadan dowladda ama dowlad deegaanka Soomaalida waana arinta ugu adag ee hadda meesha ka saaraysa dhibaatooyinka ugu baasan ee halkaasi ka jiro waayahay wararka Soomaalida ayaan u soo laabaynaa saaxiibayaal taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raagi ayaa soo saaray warqad hambalyo ah oo ku socota ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya sanad guurada 63aad ee aasaaskooda ka soo wareegtay sanad kasta 12 Abriil waxay ciidanka xoogga dalka u dabaaldegaan sanad guuradooda ka soo wareegtay markii la aasaasay oo ku beegneed sanadkii 1960 geesiyaasha qaranka ee dagaalka kula jira qawaarijta waxaanu ku boorinayaa in ay sida geesinimada leh oo ay uga keeneen ama uga galgaareen howlgallada ay fuliyaan ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiskooda sidoo kale taliyadwa ayaa codsi u diray shacabka Soomaaliyeed si looga guuleysto kooxda qawaarijta Al-Shabaab oo dagaal adag ay kula jiraan ciidamada xoogga dalka waxaan shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmaya in ciidanka qaranka ay ku garabsiyaan sidii loo ciribtiri lahaa qawaarijta baneysatay dhiigooda maalkooda iyo sharaftooda ayuu ku sii daray qoraalka General Odawa ugu dambeyntii taliyaha ciidamada xoogga dalka waxa uu guul u rajeeyay ciidanka qaranka ee furimaha dagaalka si ay u tirtiraan ama gabi ahaan u baabi'iyaan
kooxda al-shabaab iyo jiritaankeeda. sanad guuradan ayaa ciidamada xoogga dalka uga duwan kuwii hore, wuxuuna sanadkan u dhalanayaa ciidanka iyada oo ay dagaal adag kula jiraan al-shabaab oo gobolada dalku ay ku wajahayaan dagaalo adag, dhul ballaaranna ay ka xoreeyeen. munaasabada dabaaldega sanad guurada ciidanka xoogga dalka waxaa xoogeeda lagu qaban jiray magaalada muqdisho, gaar ahaan xarunta wasaaradda gaashaandhigga, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigi jiray dholotus military oo uu madaxweynaha dalka uu ka qaybgeli jiray. balse sanadkan waxaa loo badinayaa intaasi aysan u suurtagelin ciidanka, waxaana furimaha dagaalka ku maqan dhammaan saraakiishii ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka oo ay ugu horeeyaan taliyaha guud ee ciidanka genaraal Odwa Yuusuf Raage iyo sidoo kale taliyayaasha kale ciidamada qaybta ka waxaan ay ku kala maqan yihiin gobolada Shabeellaha Dhexe, Galgaduud, Mudug iyo sidoo kale deegaano kale oo Jubbooyinka iyo Koonfur Galbeed ka tirsan. taas ayaana suuragal ka dhigeen in munaasabad lagu qabto Muqdisho. dhanka kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgalo kalena kooxda al-shabaab waxa ay ka wadaan aaga deegaan Cali Afrax oo 12 kiiloomitir u jira magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. ciidankan oo ku sii siqaya deegaano hor leh ayaa gacanta ku dhigay tiro maleeshiyad ah kuwaas oo isku dayay in ay iska dhigaan dad shacab ah, waxaana xubnihii la qabtay ku socda baaritaan sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. 12 nin oo looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha shabaab ayaa gacanta lagu dhigay, kuwaas oo dadka deegaanku ay ciidanku u farmuqeen ama ay ku wargeliyeen in ay ka tirsanaayeen kooxda shabaab. bulshada deegaanka Cali Afrax ayaa ciidanka ku soo dhaweeyay deegaankan oo shabaabkii joogay ay isaga carareen, sida ay warbaahintu u sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan. al-shabaab waxay maalin ka hor deegaankan hoostaga Galcad uga carareen gaadiidkoodii kadib markii ay soo wajahday shidaal la'aan baahsan, maadaama ay go'aamisay ama dowladdu ay godoomisay goobihii ay ku sugnaayeen. taliyaha ururka 9aad guutada 18aad ee ciidanka Gorgor ee Soomaaliya Maxamed Abubakar Xasan Shaarib ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in hadda ay 43 kiiloomitir u jiraan kaliya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, halka degmo oo kaliya oo al-shabaab ay ka joogaan gobolada dhexe ayayna tahay degmadaas, waase ku xoogan yihiin markii loo eego dhulkii kale ee laga soo saaray. sarkaalkan ka tirsan ciidanka Gorgor ee ku sugan ama ka dagaalamaya Galgaduud waxa uu sheegay in ay deegaanadan ay kooxdu joogto uu ka jiro khilaaf adag kadib markii qaar ka mid ah ay go'doomiyeen ama ay go'aansadeen in ay isku soo dhiibaan dowladda oo ay qayb ka noqdaan dagaalka, maadaama ay jiraan isbedello adag oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dagaalada shabaabka ka dhanka ah. iyadoo dhulkan ay colaadi ka jirto oo ciidanka qaranku ay si joogto ah u baacsanayaan kooxda shabaab, waxaa lasoo warinayaa in uu ka da'ayo roob lixaad leh oo aada u saameeyay dadka shacabka ah ee ku qaxay deegaanada dhibaatadu ay ka jirto, halkaas oo ay al-shabaab gambaad ka dhiganayaan bulshada. kooxda al-shabaab waxaa la sheegay inay shacabka ay ku kaliftay inay ka qaxaan deegaanadooda marka ay gudaha usoo galaan ciidamada dowladda si ay gambaad uga dhigtaan oo aan loo duqeyn markii ay duurka u baxayaan. shacabka ayayna iyagu la socdaalayaan si aysan waxba dhaawaca ama saameyn kale aysan kala kulmin diyaaradaha daroonka ee ay wataan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Turkiga ee qaybta ka ah howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab. hadda Ceeldheer waa meesha ugu dambeysay ee gobolada dhexe dalka ee al-shabaab lagu baacsanayo, lana rabo in laga saaro haddii aysan dhacdo. al-shabaab gobolkoodii waqtigooda gobolada dhexe waa uu soo gabagaboobay, waxaana loo weecan doonaa dhanka iyo sidoo kale Jubbooyinka, Gado, Koonfur Galbeed oo Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose ah. guud ahaan saxaabyaal halkaas aynu kusoo gabagabeynaya barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono. nabadgelyo.